عليكم ورحمة الله وبركاته ونادي السلامي ولا الله الصوماليات ميل كستا يا دنيا الدافعية ذيك جوكتان ومركلة جنال كني الصومالي بولن فضلا انت هذا الفيديو وقدبين سبسكرايب شير لايك كومنتس فكر كذا نورب ايميل كهوس وقرنا وحي أدنى صدريسي نوغو صدرا انت از مركان كقدبو aad iyo aad waxaa uga xumahay walaalihii Soomaaliyeed ee nala soo xiriiray meel kasta oo dunida daafeeda ka joogaan xumaan idinka gamaana naamsanayn ee waqtiga ayaa sida naga noqday laakiin waxaan doonayaa hadda inaan si guud idinku jawaabo walaalaha Soomaaliyeed ee wadanka dibadiisa jooga Soomaaliya meel banaanka ka jooga waxna ka bartay way u fududahay inay waxbarashadooda ka sii wataan wadankan ayaga oo si toos ah u soo ablayn kareenayo jaamacadaha wadankan wax shuruudaha hadda kaaga xiran oo ma ka diidaya iyo wixii ka horsaay karana jaamacada ku sheegaysa muhiimku waa walaalaha jooga wadankii oo laba qayb aan u kala qaadayno qayb wadanka wax ku baratay dokumentigooduna uu yahay Soomaali qaybtaas waa aad u hooseeda natiijada ee apply gareynta wadankan ku leeyihiin waayo Soomaalida aad loogu adkeenaya dhankaas madaba aad Soomaali haysta passport Soomaali wadankeena ku bartay marka qaybtaas waxaa dheelaa bal horta soo apply gareey ka bacdina safaaradda taga laakiin mar walba waxaan idin sheegaynaa natiijada aad ka sugayday safaaradda inay sahin natiijo aad u sii badan waxa soo haray walaalka Soomaaliyeed ee haysta passportka ajnabiga ah laakiin wadanka wax ku bartay degana wadankii way ku fududahay adigana sida walaalihii banaanka ka joogay wadanka si lamid ah inaad soo apply gareyso waxbarashadaada jaamacadaada ogolaashadeeda heshana safaaradda tagto laakiin guud ahaan waxaad ka midaysan tihiin intii naasba jaamacadda xataa hadda ogolaasho ka heshin jawaabta idinkaga imaanayso safaaradda markii aad tagtaan ogaw safaaraddu haana way ku dhihi kartaa mayana way ku dhihi kartaa aad ba mahadsantihiin fadlan videoga intaada ka tagin subscribe share like iyo comments fikirkaaga noo reeb assalaamu calaykum waraxmatullahi